عبد الرحمن ورأفة الباشا marka wuxuu ka hadlayaa siiradii asxaabta qayb ka mid ah yacni noloshii asxaabta suwarun min xayaati saxaaba suwar yacni waa misaal iyo tusaale la yidhaahdaa marka tusaalo noloshii asxaabta ka mid ah ayuu sheekhu ka hadlayaa saxaabatu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam noloshoodu siday ahayd ay ku noolaan jireen taas marka yacni waxaa lagugu qorayaa in yacni xayaatadaadu ay waafaqdo xayaatadii asxaabu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam sheekhu marka ducadan uu hormariyey intuuna bilaabin siiradii oo wuxuu yidhi allaahuma allahayow innii axbabtu waxaan jeclaaday saxaabata nebiyika nabigaaga asxaabtiisii baan jeclaaday muxamedin ahaa sala allahu calayhi wasalam asdaqa alxubbi jeceella wax la jeclaado midka ugu runnimo badan wa acmaqahu midka yacni ugu kaamilsan oo ugu waasacsan xubbi midka ugu xeel dheer baan asxaabtii nabiga jeclahay ugu runnimo badan fahabnii ilaahow ii hibee buu yidhi yowma alfazaci alakbar maalinka qiyaame ee argagaxa weyn uu dhacayo liayin minhum nin asxaabta ka mida ilaahow ii hibe dee nin saxaabatu rasuulillaahi hadduu helo maalinka qiyaamaha dhibaato arki maayo ninkan musanifku saasuu leeyay marka ilaahayba wuxuu ka baryayaa qiyaamaha mar hadduu asxaabtii nabiga ilaahay dartii uu jeclaaday mid ayagii ka mida in ilaahay ku xidhiidhiyo oo la kulmiyo maalinka fazacul akbar waa yowma alqiyaama fa innaka adigu taclamu ilaahu waad ogtahay annii anigu maa axbabtuhum inaana jeclaanin ilaa fiika adiga dartaa umbaan u jeclaaday yaa arxama araaximiin anas ibnu malik alansaariyu ayuu ka bilaabay sheekhu anas binu malik saxaabiga la yidhahdo allaahuma arzuqhu maalan wawaladan wabaarik lah min ducaa'i rasuuli sala allahu calayhi wasalam lah anas binu malik waxyaalihii lagu khasisay waxaa ka mid ahay ducadaa nabiga uu u duceeyey allaahuma arzuqhu maalan ilaahow maal ku irsaaq wawaladan carruur fara badanna ilaahow sii wabaarik lahu ilaahu u barakeeye maalka iyo awlaadda marka saan siiradiisa gadaal ku gaari doono ilaahay ducadii nabiga waa u aqbalayoo yacni dadka ninka ugu hanti badan buu ahaa uguna awlaad badan kaana anas binu malik wuxuu ahaa fii cumri lwardi xiina laqanatu ummuhu lqumaysaa'u ashahaadatayn anas binu malik wuxuu ahaa fii cumri lwardi cumru lwardi waxaa la yidhaahdaa cimriga markuu yacni bilowga yahayoo aadka uu yacni qaaliga u yahay oo geedkaa wardiga la yidhaha waa geedkaa uduga badane cimrigaagu markuu hor leeyahay ood yar tahay waxaa weeye waa kal wardi oo kale wa xiina laqanatu ummuhu hooyadii markay laqintay alqumaysaa hooyadii waxaa la odhan jiray alqumaysaa waxaa kaloo lagu sheegaa alrumaysaa ashahaadatayn gabadhaa markay shahaadateynka ku dhawaaqaysay ee ilaahay iyo rasuulkiisa rumaynaysay ninkaasu wuxuu ahaa nin yar yuu ahaa anas binu malik wa artacat fu'aadahu alqabda bixubbi nabiyi alislaam moxamed ibnu cabdillaahi calayhi afdalu salaatihi wa aska asalaam wa artacat wa atracat fu'aadah qalbigiisa waxay ka buuxisay qalbigii alqabda qalbigiisii alqabda ee cusbaa shayga markuu cusub yahay baa la yidhahdaa qabdi bixubbi nebiyi lislaam islaamka nebigii ilaahay uu u soo diray maxabadiisii bay qalbigiisa ka buuxisay muxamedin ibnu cabdillaahi calayhi afdalu salaatihi wa aska salaam fashuqifa anasun anas waa la jeclaysiiyey bihi binebiyi nabigaa la jeclaysiiyey xubban jeceel cala samaaci maqal un ah xubban cala simaac yacni maqlidda nabiga markii uu maka ka soo baxay maqalkiisi baa looga sheekeeyey sidaa weeye markaasuu nabiga jeclaaday isagoon weli arag
حبا على سماع ولا قروة wax yacni la baciidsado ma aha oo lala yaabo faludunu tacshaqu qabla alcayni axyaanan buy dhegtu inay wax jeclaataan laga yaabaa intayna ishu wax arag weli qof aada weligaa arag baa laga yaabaa inaad aad u jeclaato maxaa yeelay maqalkiisa ayaa aad kuugu batay oo saaftiisa wanaagsan baad maqashay markaasaa lagaa dharjiyey adoonba weli aragoo ishaadu arag baad aad u jeclaanaysa marka dhegtiba dheg baad ka jeclaatay markaa dheg baad ka jeclaatay faludunu tacshaqu qabla alcayni axyaanan buy dhegtu inay jeclaataan laga yaabaayo isha horteeda yacni mararka qaarkood wa kam tamana algulaam wax badan buu tamaniyey wiilkaanu asagiiru oo yar an yamdiya inuu tago ilaa nebiyihi nebigiisa inuu aado fii makka inuuba baxo oo maka aado ayuu wax badan tamaniyey ow amase yafida rasuul rasuulku inuu soo wafdiyo alacdam sala allahu calayhi wasalama calayhim ama rasuulku inuu socdaal iyo wafdi ku yimaado calayhim dushooda waa reer ansaareed ee wiilkan ansaar buu ka dhashay reer madiinaad buu ahaaye fii yasriba madiine inuu kusoo ziyaartay ee wafdiga ugu yimaado liyascada inuu ku liibaano biru'yaahu nabiga aragtidiisa wayahna'a inuu ku bogaagsado biluqyaahu la kulankiisa wa inuu nabiga yacni aragtidiisana oo markaa uu rumeeyana uu ku liibaano yacni la kulankiisana uu ku yacni ku hambalyaysto oo ku bogaagsado saa darteed lam yamli ma tegin buu yidhi calaa daalika dawiilu waqtin waqti dheer ma tegin buu leeyahay xataa saraa ilaa uu yacni xataa saraa ilaa uu guuray fii yasriba magaaladii yasriba waxaa dhex qaaday oo gebigeediiba magaaladii dhammayd qaatay yasribadii almaxduudati almaqbuuda almaxduudati la dheefiyey ilaahay baa dheef la doonay oo maxaa ilaahay la doonay inay makaanu hijrati nebiyi noqoto sala allahu calayhi wasalama nabigu meeshuu i hijroon lahaa inay noqoto xaramkii labaad inay noqoto oo xaramu rasuulillaah inay noqoto yaa ilaahay la doonay marka waa maxduuda min allah xag ilaahay baa laga dheefiyey magaaladan almaqduudati oo la kamanayay oo wax la kanta oo daaru hijrati nebi bay noqotay maxallu iqaamatihi bay noqotay meeshii lagu duugayey bay noqotay masjidkii labaad ee fadliga badnaa baa meeshii laga aasaasay rawdadii shariifada ahayd bay noqotay yacni jasadkii mubaaraga ahayee nebi maxamed midii duntay ee ku duugan yahay bay noqotay sala allahu calayhi wasalam saa aawadeed bay waxay noqotay maqduuda mid la kamanayo aad loo kamanayo waa maqbuuda wey marka waqti dheer ma soo wareegin ana nabiya salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi weye wasaaxibahu saaxiibkiisii asidiiqa fii ariiqihimaa dariiqoodii inay soo qaadeen oo ilayhaa ila almadiina hijray soo galeen markaas nabi maxamed iyo se abubakar baa soo hijrooday oo madiinay usoo hijroodeen faqamarat ilbahjatu kula baytin wamala'at ilfarxatu kula qalbin faqamarat ilbahjatu bahjadii iyo iftiinkii wuxuu buuxiyey kula baytin guri kulligii wamala'at ilfarxatu farxadii nebi maxamed soo gelidiisa iyo yani soo haajiridiisa lagu farxayeyna waxay buuxisay kula qalbin qalbi kastoo mu'mina ayay buuxisay oo dadkii madiine ku noolaa ee reer ansaareed iyo dadkii la noolaa وتعلقت العيون والقلوب بطريق الميمون الذي يحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى يثرب وتعلقت العيون indhihii waxay ku dhegan yihiin oo mar la arkay eegayaan walquluubu quluubtina waxayna marnaba hilmaamaynin oo ay mar kasta fiirinaysaa biariiqi waddadii dariiqii almaymuuni la barakeeyey dariiqii maymuunka ahaa ee barakaysnaa aladii yaxmilu xumbaarayey khuda nabiyi sala allahu calayhi wasalama nebiga tillaabooyinkiisa iyo wa saaxibihi saaxiibkii tillaabadiisa ilaa yasriba dariiqa soo xumbaaraya nebi maxamed iyo si abubakar soo xumbaaray yacni oo tillaabada ay soo qaadayaanee madiine ay ugu soo socdaan waddadaas unbaa quluubtii iyo indhihiiba qafaalatay bay leeyahy halkaa unbaa la eegayaa meel kaloo la fiirinayaa male wa akhada alfityaanu dhallinyaradii iyo shubaantii waxay guda geleen akhada min afcaali shuruuc weeye wa akhada alfityaanu waxay guda geleen yushiicuuna inay faafinayaan maca ishraaqati kulli sabaaxin ana muxammadan qad jaa'a
subax la arka markuu waagiisu iftiimo dhallinyarada magaalada waxay la wareegayaan ilmihii yaryaraa oo nabi maxamed baa yimid saa un baa laleeyahy wa akhada alfityaanu waxay guda geleen yushiicuuna inay faafinayaanoo maca ishraaqati kulli sabaax subax la arka iftiinkiisa waa kasta oo baryo waxaa uun la faafinayaa ana muxamadan qad jaa nabi maxamed waa yimid intee maalmood bay reer madiinaad yani geedaha saarnaayeen ee nabiga ay sugayeen calayhi salaatu wasalaam fa kaana wuxuu ahaaday anasun anas yascaa mid u ordaya ilayhi arrintaasuu u soconaya farxad baa hayso oo nabiga soo gelidiisa maca saaciina kuwii ordaya oo min alawlaadi siqaari carruurtii yaryarayd buu dee ka mid ahaaye saasuu ordayaa 10 jir buu ahaaye marka nabiga uu qaadim u noqday ee uuna madiina yimid marka canug yar buu ahaa marka awlaadda yar ee faraxsan ee ordaysa unbuu ka mid yahay laakinahu laa yaraa shay-an waxba ma arkayo subax la arka waa la yaacaya buurihii baa la fuulaya marka harkii markay qoraxdu kululayso unbay soo gadoomayaan laakinahu laa yaraa shay-an waxba ma arka weli fayacuudu waa soo noqonayaa ka'iiban maxzuunan asagoo murugsan buu soo laaban subax la arka saakuu soo gelaya unbaa la leeyahay markii duhurkii la harkii la gaaro unbay soo noqonayaan iyagoo murugsan wey wa fii daati sabaaxin subaxyaha ka mida shadiyi landaa'i yani nadiiri ruwaa'i subaxyaha ka mida oo yacni majliskeedu uu aada u udug badan yahay fiiradeeduna ay iftiimayso alandaa yacni majaalista la fariisaa la yidhaahdaaye nadwaha way nadiiri ruwaa'i aragtideeduna ay aad u qurux badan tahay hatafa rijaalun rag baa dhawaaqay oo fii yasriba madiinay ku dhawaaqeen inna muxammadan iyo wa saaxibahu nebi moxamed iyo saaxiibkii waa abubakare hadda waxay ahaadeen qariibayni min almadiinati madiina kuwa u dhow bay noqdeen magaaladay soo gelayaan baa saakay magaalada soo gelayaan fadafiqa rijaalu raggii waxay guda galeen yattajihuuna inay u jihaysanayaan naxwa ariiqii almaymuuni la barakeeyey aladii yaxmilu soo xumbaaraya ilayhim xaggooda nabiy alhudaa waalkhayr dariiqa soo xumbaarayo gaadiid la saaran yahay camal baa lagu shabahayaa waddadii nabiga aysi abubakar soo qaadeen marka dariiqii barakaysnaa ee soo xumbaaray xaggooda u soo xumbaaray nabiy alhudaa waalkhayr hanuunka iyo khayrka nebigiisii dariiqii soo xumbaarayey xaggiisay u jihayseen raggii oo dhan halkaasay aadeen si loo soo dhoweeye nabiga cadowga iyo wixii xun oo dhanna looga difaaco ayagoo seefahoodii garbaha gashaday bay nabiga xaggiisa aadeen wa wamadow way tageen raggii waa yaaceen yatasaabaquuna ayagoo tartamaya ilayhi ila nabiy nabiga ayagoo u tartamayo nabiga la kulankiisa jamaacatin xaal ay yihiin kuwa jamaaca awo ee dadkii raggii reer madiinaad oo dhan baa soo baxay marka ayagoo koox u socdo sidaa isu daba joogo ayay aadeen weeye waddadii qaabileen tatakhallaluhum xaalay dhex socoto haddana dhex gelayso yani asraabun jamaacooyin oo min siqaari lfityaani carruurtii yaryarayd oo raggan waaweyn waxaa dhex didayo kuraydii yaryarkahayd ee kuuskuuskahayd ee 10 jirka iyo dhowri 10 jirka iyo kuwa aan 10ka gaarina yaryaraa ee ayaga naftooda horin u socdo yaa dhex ordaya ragga dhex socdo wey asraab waa jamcu sirbin oo sirb alqadaa oo kale wey halman yuciiru janaaxahu sirbigana waxaa la odhan jiray jamaacada shimbiraha yani raxanta isula socday saa u guurayo yaa sirbiga la odhan jiray marka wiilashii yaryarkaabaa lagu shabahay asraabun oo min siqaari lfityaani carruurta yaryarayda tusaqridu xaalay ifinayso calaa wujuuhihim wejigooda yaa waxaa ka muuqato tusaqridu calaa wujuuhihim wejigooda waxaa ka daahirayso farxatun farxaddaasoo taqmuru buuxisay oo quluubahum quluubtooda asaqiira wiilashaa yaryarkaa ee ragga dhex didaya aabbayaalkooda dhex didayo quluubtoodii yarayd waxaa buuxisay farxad wa turticu afidatahum quluubtoodii waxay daaqaysaayay ku farxaysaa weeye alfatiya farxad yacni quluubtoodii daajinayso oo farax ka buuxisay ayaa marka yani ka daahiraysa wejigoodii wey wa kaana fii daliicati haaulaa'i sibya carruurtaa yaryarkaa madaxdooda waxaa ka mid ahaa kuwa ugu horeeya ee horayda yaacaya waxaa ka mid ahaa u horeeyo anas ibnu malik alansaariy
أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه رسول كبا سوقا بلي مع صاحبه الصديق صاحبك صديق سقوا الله صعده ومضيا ويسعدين بين أظهر الجموع الذاخرة ومن الرجال والولدان ومضيا ويسعدين نبي إيا صاحبك بين أظهر الجموع جماعوينك فرض بدنا الذاخرة وآت كأفرض بدنا ذاخرة يعني آت أفرض بدنا ترب بدنا ومن الرجال إيا والولدان الرقي وويناء إيا عرورتي يريريدا بحضو ذا أي مركزاء أسعودين وي أيوه قاديد كودي سارا أما النسوة هوانكي المخدرات أسترنا أيوه قريه هذا كو أسترنا دمر كديني بنانك اسكا يعان مها أيوه يعني قريه كو أسترين هيني هاي إيا والصبايا الصغارات قبله يرير كاها فقد علونا وحي ككر نقدين سطوح المنازل قريها سانقاف كودي بيفولين وجعلنا وحي قدقلين يتراعين إني استصيان الرسول كإني استصيان صلوات الله وسلامه عليه وهو يقولنا إليهن أيهم هو لبن نبال سودة وين مقالة سوق لي ريم مديناتنا ما يقانا النبي مركا دي لبن بقى إسلا سعود النبي يا صاحبك وحي ليهن واكي كان نبي ولا إيجيا ولبا بدان أهان ده هدي اللي يراد السنة كان نبي كوينا عليه الصلاة والسلام وحي أبو بكر كوينا بدان أهان وحي أمه قتئنه سيد أبو بكر كوينا محايل دين عرب بضن بوها سيد أبو بكر نبي قلنا عرب ملاهين عليه الصلاة والسلام في مدينة مركي نبي سود دويين انت هرار نمبو سيد أبو بكر مبابا لموذا يا نبي لموذا محايل سقا دأوينا إلى قرح دي انتي صواب حدي وسيد أبو بكر ونبي مرات سيدا أبود القصر مركز الله فهمي dadkii aan garanayno idil markaas ay fahmeen marka gabdhihii iyo haweenkii way istusayaan guryaha korkooda ayhum huwa fakana dalika al-yawm maalinka wuxuu ahaaday yawman mashhuudan buu ahaay maalin weyn buu ahaaday way dhalla Anas ibn Malik wuxuu ahaaday yadkuruhu mid sheegayo hatta nayafa ala al-100 min umri عمريسا إلى أو بقول كزيادة عمريسا بقول يصدح سنو كود انت أنس هذا يعني قال نوو إيمان دونتو مركا حتى نيفها إلى أو كزيادة نيفك وزيادة على 100 إلى عمريسي وهي بقول كزيادة إلى أو بقول طاف عمريسي انت أو مكشة كيجري مالك كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فرحد الريم مدينة إلا كل من انت أسوي النبي يقول لسعودي حياتي طوانك سنة وكلان ولا يولي جيب شيء يجري وبقول كاسنة وكسي كيني سيديتا يدور سنو النبي كدن بي انت وانكشي كينجري حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما كاد الرسول كي مدوان الكريم وناكسنا صلى الله عليه وسلم يستقر إنه سقنا بالمدينة حتى جاءته الغميساء إلى أي نبي أطمد الغميساء بنت ملحان أم أنس الله مركو النبي يمد عليه الصلاة والسلام maalmo uu joogay ba asagoo magaalada Madiina si fiican ugu sugnaanin oo wax badan ba aan sii joogin isla markii waxa timid gabadha la yiraahdo al-Qumaysa bintu Milhan Anas hooyadii way وكان معها وحل سعدي غلامها ويلkeedii asqiiru ay yara وهو يسعى بين يديها horteedu ordaya وذؤابته فوديسنا ايه تنوصان على جبينه وحي تابنيسا يعني دفوركيسا way tima yar buu lahaayo sida u soo dheeroodu aabataanka waxa la yiraahdaa timaha dheer oo sida u soo marka meelahan ay timihiisi la laadaanaysa u taabanaysa tima jilicsan oo tima carbeed u lahaaye marka saasay u soo yani timihiisi baa u soo laado aabataan timaha u soo laalaadaleeda asal ahaan du'aabada gabdhaha lagu tilmaamaa oo gabdhaha yar yarka markii timaha loo xiro sida loo xidho oo timaha saa loo laabo timta yaro intay gaabato sida u soo lalmataadu abataan leeyahay gabdhaha markii la tilmaamayo markii wiilashuna intimahoodan yarka ay fooda markii xoogaa la daayo soo dheeraadaan oo meelahan lushaan taas lagu jeedaa marka foodiisi baa soo lalmato oo meelahan taabanaysa dhaforiisa anug yar buu ahaa marka 10 jir ثم حيت النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام نبيga ayay salaamtay gabadha la yiraahdo Qumaysa bint Milhan wa ana sooyidii وقالت waxay tiri ya rasuul Allah لم يبقى رجل نين مباقي نقنين ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة قف كستور ريم مدينة أما نينها النقض أما ناقها النقض هديو كسيو كوكين
وقد أتحفك وحو يعني كسيي بتحفة هديو وإني أنا لا أجد هلي مايو ما أتحفك به وحان هديو كوسي غير ابني هذا ويل كيغان مويا أنا ويل كيغان أنا ما أنت هديو وضع بيتري قفك استعدو وحكو كاني وحكالو أنا أنكسينا يا مجر قبر أيو أقول لي عجب بدن بهيدا إيمان ويني وحيتري وحكالو هديو كوسي أنا قرن مايا ويل كيغان أنكو وضع فخذوا قادو فليخدمك هكو خادم ما شئت انت دونت هكو خدميه قاديت رسولك الله قال ورك فهش النبي صلى الله عليه وسلم النبي وافرحي للفتى الصغير ويلك يرى ايو كفرحي وبشا يعني ونا فرحي وقص لي النبي وجي فرفران وبشاش ايو مركا الله سو قابلي ومسح راسه ومدحه كما صحيح بيده شريفتي ومس ذؤابته يعني تميه سلالادة يفودها أبو صدا أوتاكت بأنامله نبي فريه سي الندية وضمه إلى أهل كيسو أدوه مركا نبي أهل كيسي بقدر وحيري وكالا وريقي مركا وما حسنت هايو كان أنس بن مالك وحوها أو أنيس بابا الأورنجري كما كانوا ينادونه تدليلا سيدا أي معنى أقول دين جرين أنيس بابا الأورنجري لو دواقي جري أنس يرو تصغير كاسا لو دواقي جري مقعيسا ولا تصغيرين جري وترحم هي محبة درتيد باللو يلي أنس وحوها أما أنيس بوحوها في العاشرة من عمره سندي طبنات بيها إذا عمره يسوي يدأديسا يوم سعيد مالك وكل باني بخدمة النبي صلوات الله وسلامه عليه مالك النبي خدمتي وكل ليس إلهي وأسهل كل باني تنجربها أنس وظل وحوء هذا أنس يعيش مدن لانا في كنفه ورعايته نبي دين عيسى جانب كيسي ورعايته يعني إلى لنتي سكن ولا ولي كسو كريوي لعنه تنجرها ولا أذيكتنا يا لكن خدمتي سوى ويتكير تايو إن حق له وحبا قبنا يبا ماها لكن إنه النبي محمد تربيه وهوزي سوى كسو كرأم بإلهي وقدره إلهي وقدره مركا النبي كان بكيسي رعاية ديسا أيو كسو كرأي وكنه هذا إلى أن لحق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى النبي أوها ليلة بالرفيق الأعلى إلى النبي قد انت عليه الصلاة والسلام فكانت وحيئة مدة صحبته مدة النبي الله صاحبي أي مدة صحبتي أنا صحبتي مدة له الله صاحبي النبي 10 سنوات كاملات 8 سنة كاملة 8 سنة نهال فيها وكعبي من هديه النبي هديجيسي ما زكى به نفسي سوحه قطه هريو نهلي وحالي هذا عبتان كحولها مركي الله ورابين أيوه ورابك أهرية حوله يعني ومن جهين كمينت أيهين در لافيان تاسع ليراد مركن هلا ووراب هرادية فيها مدة في كذا من هديه النبي هديه يسيب كور يكهر يعني كوراب عبي وكو يعني وراب هراد كيف كعبي أسوأ هذا أمن أيوسف عنه عبي يا هاي نهلي يعلي بالك الإرادايو نهلي هو ورابك أهرية علقنا ومركا دنبئ إلا دردورية وحلوه علينيو ركعاتها دنبوي يا مركا نبي هذه يسيبها لقى وراب هراديين نكات أنس بن مالك ليدا تفي عنبو وقعبي وين ما أبو كعبي وزكى به نفسه ونفتي سوق ظاهري ووعاه ولي من حديثي نبي حديث كيسي ما ملأ به صدره لابتي سوحه كبوعي وعرفه أقنصد من أحواله نبي أحواشي وأخباره وأسراره وشمائله نبي شمائشه صفات كيسي ما لم يعرف أحد سواه قف أساك كسوهر وحنا أقونين بو يغاني نبي كيغاني محايا لي 10 سنة يوسفرا وحضرا بو نبي مرنا بفاروقين وي عنو يرنو هايو غريسو لا غلي جيري وهبين مالين بو نبي لا جوغي جيري marka nabiga axwaashiisa wax saa u yaqaan hatta haweenkiisa waa Allah ka dhigay xeel markuu safarka yahay hatta haweenkiisu inay ka haraan baa laga yaabaa sidoo nabiga u yaqaanay wax u yaqaanay baa xawaasha nabiga u yaqaan ana sidoo u yaqaan